وردقدقة إسماعيل عمر قيل oo soo raafay toos buu soo raafay waa soo masaafuriye wax allaali wixii Soomaalidiid ahaa daasadahoodii iyo qorfadoodii iyo waxay siteen badibada u soo dhigay maanta Ismaaciil kugu maalay Ismaaciil Cumar Geelow inta aad nooleed maanta Soomaali u helisay kaarkii victimka ahaa waa la soo cusboonaysiiyay isaaq baa la leynayaa baa media la soo fadhiistay nin walaal isaaq xamar joogaba hal dilo xamar iyo berberiye baan imanayna waan ku shahiidayna garoowe iyo garowana waa la xasuuqaya garoomiyana Soomaali ahayn hawiya dameeru dhaqdaa waa sax laakiin adigu buuriyada gaalada dhaqdaa gabdhihii suuqa dhexdiisa dharka laga saaraya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعنو ونكسن دمان ومضى الصوماليات قوب كستا iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka iyo halganka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa barnaamijka dug soo gaarsiin share garay haddii salaadi ku joogtaan u soo tukabad hayna gelin haddii kale nabiga sallallahu alayhi wa sallam Muhammad dalka iyo dadka iyo diintana ilaalaynu ka nahay ilaalo waa ilaashanaynaa dhaqankeena diinteena dalkeena iyo dadkeena dalkii dadkuna waajib ba ka saaran barnaamijka share garay oo leegta ku boob dalkii dadkana u soo ducay soo dhaw qodobkeena koobaad ninkii Ismaaciil Cumar Geelaha kugu maalay Ismaaciilow kugu maalay sanadka maanta Ismaaciil Cumar Geele ummadda Soomaaliyeed waad u hiilisay wixii hore oo dhan waa wacda waxaad ummad kala qaybinaysay dad madax isu gelinaysay sanadka maanta ah qofka limintiisana waa la sheegaa xumaantiisana waa la sheegaa Ismaaciil Cumar Geele maanta ummadda Soomaaliyeed waa u hiiliyay golaha amaankina waa uga hiiliyay bal hadda eegi UN-ka markii la joogay gaashaanku u daruuray wuxuu war waxaan wasaqda ah ee cuqdada qabay xanuunka la faahsitaa anu waqti uma hayno Soomaaliya waa mid biir haddaba maxaa dhacay dalkii Djibouti wax allaale iyo wixii argagixisa SNM ee joogtay cabaad weyn tahay ee buuriyo dhuuq ahay ee baarada gaalada leefisay ee ummadda Soomaaliyeed doonaysay inay kala guushay Ismaaciil wuxuu yiri raaf baa ka dhacay sidoo oramadii baa loo raafay sidoo oramadii caawa Djibouti raaf baa ka socda waxa la raafaya wax allaale wixii argagixisada SNM ah oo cabaad weyn ah oo Soomaalidiid ah oo gooni isu taagii shaka jecsan iyo buuriyo dhuuq ah oo dhan wuxuu Ismaaciil Cumar Geele ma arki karaba wax la yiri qunsuliyad anu waan fahmi waayba markii horeba Ismaaciil anu qunsuliyada ay daba garanayo garas idaafa buu yiri ummad waalan anigu taafad uma hayo wax lagu sheegi jiray qunsuliyad albaabada loo laabayba wax allaale wixii cabaad weyn joogtay ee SNM ahayd ee Soomaalidiid ka hayna saaka waxa ku guudkii iyo kaarti a iyo kaarti do iyo raaf baa ka socda magaaladii Djibouti raaf baa ka socda iyo dalkii Djibouti waxa la raafaya wax allaale wixii cabaad weyna qofkan Soomaali waa mid qofkan laga maqal oo iidoora maanta jooga Djibouti waa raaf Ismaaciil Cumar Geele hambaliyo iyo gobonnimo iyo salaan iyo bogaadin baan hawada ku soo marinayna sanadka maanta ummadda Soomaaliyeed waad u hiilisay eegay guuleysaan ku leenahay wax allaale inta joogta hadda Djibouti ee waxa weeye macal islaanta dhabarkeeda ku jirana ka soo saar meesha ummadda Soomaaliyeed laga dhibaateynayay ee laga baabiinayaba dalkaad madaxweynaha ka tahay waxaad horumar u gaari weydeen reer Djibouti biyo la'aanta haraadka abaarta koronto la'aanta xanuunka kaneecada iyo hoogaba waxa ku hayaba waa dadka xuna gaala leefka ee waxa weeye Soomaaliyeed kala go'do iyo iyo hoog iyo balanbal maantana Netanyahu kana Hargeysa eegi oo gabdhihii Soomaaliyeed sida gabdhihii suuqa dhexdiisa dharka laga saaraya gabdhihii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa qodobka si gaar ah isu dultaagaya ee hambaliyada iga gaarsiiyay Ismaaciil Cumar Geele ummadda Soomaaliyeedna ha ogaato argagixisadii cabaad weyn tahay Djibouti waa laga raafaya sida oramada loo raafayo baa loo raafaya sida oramada magaalooyinka Soomaaliya looga raafayo baa caawa Djibouti guri kasta jandarmeeri ciidan iyo jandarmeeri bisa ugu shiday Ismaaciil Cumar Geele wax allaale wixii Soomaalidiid ahaa oo wala raafaya saylac iyo lughaya laga soo daadinaya guuleysa madaxweyne abaalka ummadda Soomaaliyeed u gashay way ku haysaa sidii aad golaha ammaanka uga hadashay oo qareenkaaga uga hadlay ficil la mid ah maanta Djibouti ka fulisay waana kugu taageersanahay waana kugu hambalyeynayna guuleysaan ku leenahay qodobka labaad magaalada Hargeysa ahayd waxa tagay niman Yahuuda oo Netanyahu ilmaadiradiisa walaalihiisa gabdhihii Soomaaliyeed ee dhaqanka iyo diinta lahaa marka idin leeyahay waxan marka leeyahay ciro islaam maaha marka idin leeyahay been baad iga muudeysaan diintu waa bedeshay marka leeyahay been baad iga muudeysaan
bal isagu diinta ha badisay dadkii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed diintooda haduu nabad gelin lahaa wax dhamay ahaan lahayd gabdhihii inta la soo kaxayay oo khiriyad la keenay suuqa dhexdiisa gabdhihii maryaa laga saaray sawirkan aad arkaysaan aragtaan waa gabar Soomaaliyeed oo magaalada Hargeysa joogta iyadoo asturan buu ninkaasi marada saaray maradii Netanyahu buu saaray sawirkan ku xigana fiiriya wuxuu ka diirayaa xijaabku ka diirayaa Hargeysa suuqa bartankiisa gabdhihii dharka laga dhigaya gabdhihii Soomaaliyeed ee islaamka ah ee asturnaa eegay inta banaanka loo soo saaray baa leeyahay maryaha iska dhiga inkaas shariica islaam iyo mid gaalo iyo dhaqan islaam mid uu xaq ugu leeyahay adduunkan maanta joogna xitaa ee reer galbeedka qof aan waxa weeye wadada iska mariyay jirkiisa ma taaban kartid dharkiisa ma taaban kartid mamnuuc weeye naagta gaalada ay timaha qaawan halka maraysid jirkeeda ma taaban kartid isaguna gabar Soomaaliyeed buu jilbaabka ka diiraya wuxuu ka qaadayaa masarka iyo jilbaabkiisa iska diir bulay itiraafkii baa yimi buu yiri itiraaf shalom buu yiri diir hadda gabdhihii waxa lagu khasbayaa Hargeysa iyo Burco iyo Berbera joogay inay dharka iska dhigaan wuxuu yiri naaxuudayaal iyo kufraad nabiye moodeen nacalluhu ku fuulay baa daban nashleysayna safadaatiin gaalada nicil ahaydeen yaani boqol iyo dhowr ilaa 10 sano ka hor suugaantii laga tiriyay maanta hortiinay taallaa waa gabar Soomaaliyeed itiraaf baa la yiri weynaad maryaha diirtaa maalin dhow Hargeysa iyo Burco iyo Berbera waxaad ku arkaysaan gabdhihii Soomaaliyeed haaf sarawil qaaqaawan sita timihina u diiran yihiin Djibouti wax ma laga sheegi jiray wali jiray Djibouti ku qaaqaawan yihiin been iqarso itiraafku waxa ka kow ah in maryaha la dhigo in diinta laga baxo in waxa weeye la isqaawiyo in khamrigu waxa weeye in daanweyn noqdo waa itiraafku ku xiran yahay horteenu dharka kaga saaraya gabar Soomaaliyeed ku qaawinaya madaxeedii ku qaawinaya wuxuu leeyahay itiraafka dad doonaysaan waa inaad mari sababtoo dadkan dhowr iyo 30 sanadood baa waxa lagu lahaa itiraaf filmaysan ila aad waxa weeye diinta gaalada gashaan haddana bahal baa loo soo sameeyay Ibrahim Accord dhiyado la isku soo mooqnaa dhinac laga tusaxlay dhinacan waa islaamkii dhinacna waa yahuudi dhinacna waa kristankii halkan buliistii waa ku jira hinduugi waa ku jira halkan waa la isku mooqalay wata waxa intaas si dheer kaarkii victimka la soo baxay isaaq baa la leynayaa Berberiya Burco iyo Hargeysa loo soo socdaa waxa dhan isaaq qofkii isaaq la arko hadda iyaga waxay lahaayeen kuwa ismadood iyo culimadooda waxay lahaayeen qofkii aan isaaq ahayn Berberiya Hargeysa lagu arko hal dilo iyaga shalay ku khudbadaynayay odaygii asaasiga ahaa ee xanuunka ahaa ee 2015 umada Soomaaliyeed tusay inuu waxan xaar yahay xaar saxare meeliyan inuu yahay baa soo fadhiistay isaaq baa la leynayaa isaaq baa waxa la yiraahdo lagu jahaado garowana waa loo socdaa Puntland baa loo socdaa reereen idooro mismaqlayna abaad weynay ninkan naasaha weyn ee ahmaqa ah eegay ee adoonka ah ee Saciid Hulumbe eegay haduu idinka idin socdo oo been idin sheegay war dadka reer Puntland iyo dadka waxa weeye harti eegay waa mid Soomaalina waa mid baladeegi deegaanadan aad ku soo duulaysid leedahay aniga iska leh qarna dusheedu sheeganaya bal Saciid Hulumbe handikaab yahay baa idin sheegaya doqonka naasaha weyn isoo niikinaya markii oo la ciro niikinaya waa kan ناس أفضل كاسي هادو يدو لا سocdo reer Puntland idin lama socdo meeshaad sheeganaysaan waa qardho iyo qow waad sheeganaysaan iyo laas qoray baladeegi iyo laas caanood iyo garow disheedaad sheeganaysaan waxaan leeyahay reer Puntland baan la socdaa reer Puntland idinku maalay dad damiirkoodu dhintay oo handikaab ah oo waxa weeye fulay ah oo aan dadnimo lahayn oo aan garasho lahayn oo Saciid Hulumbe shiilima ka qaata iyo dad maskaxdoodii la dhaqay waxaan la yaabanahay gabadha iyo wiilka reer Puntland ee abaad weyn iyo argagixiso taageeraya ninka kule garow waan leeyahay laas qoray baan leeyahay oo qow baan leeyahay oo qardhaan leeyahay oo laas caanood baan leeyahay ninka kule oo doonaya inuu khasab Soomaali kaaga soo goosto oo ku adoonsado bal adigu adoonnimadii baad qaayibsantahay waxaan la hadlayaa naagaha iyo nimanka
reer Puntland nala sheeganaya ama hartiga sheeganaya iidoorka bal dulinimadiina iidoor oo guriyo gaalo dhuuqaya baad fuftadiisii leefaysaan maxaa damiirkii idinka qaaday iyo dadnimadii anu Saciid Hulumba waaba gartay ninka naasaha weyn ee doqonka cuqdad baa ku dhacday oo xaasidnimo iyo xumaan ku jirta wuxuu u taageerayaa iidoor u taageeraya adiga gabadhay maxaa ku waalay ninkaaga dhalinyarada adiga maxaa ku waalay bal inaad handikaab tahay ninku adiga iyo hooyadaaba Soomaali baan ka goynaya baad leefleefaysaa marka saxleen garowana la soo weeraraya kar oryaare iidoor abaad weyn buuriyo dhuuqay iidoor wagaashow anagu adeer idin kulama jirno Soomaali baanu nahay anagu kaarkan victimka ah ee beenta wana la leeyahay in la xasuuq la raba goorma waalantiin goorma samiir qabtaan ma markanaad waalantiin bal dhigeyso nin walaal isaqa xamar joogaba hal dilo xamar iyo berberiye baanu imanayna waan ku shahiidayna garoowe iyo hargeysaanu duminayna war garoo meel Soomaaliya ahayn iyada lafteed maxay u duminay waa nagu soo xoqanaya garoowe waan duminayna oo Saudigiina lahaa shalay wanoo garoowe guusha muusoo ciidan ka fasaxo inoo garoowe guusha faqash goormaan marka idina macaanaanay midda kale dhulbahantahan aad diidaysid iyo warsageligan aad diidaysid oo aad doonaysid dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa inaad sheegato iyo garoowe maxay kala yihiin qalbada idin jaban oo handikaab baatiin oo balwada cuntaan baan la garanayn oo dad iimaankii beelay baatiin oo xasuustii qalbigii jabay marna waa faqash marna Puntland waa fiicanta war Puntland idin lama socoto inayna dooni mayso Puntland waa waqooyi barna waa Puntland waxana waa dad wada dhashay anaga harti baan la yiraahdaa jifi baan la midnahay iidoor jifi ka baxda iyo harti baa siman anaga baan kala qoor salaaxaysa dhulbaanta iyo majeerteen baad qoorahooda kala salaaxaysa hal DNA weey hal oday baan wadaay waxba dhalfada harti kala salaaxay iidoor baa lagu dhahaa argagaxisa tahay abaad weyn baa tahay la faasidataa ummadda Soomaaliyeed baa kala goynaysa waxaan arkay isagoo hawiye caaya oo la hawiye meel la deganaa la deeyo 18 gobol ee siyaad barakatay 18 kiisi caasimadood magaalo hawiye gaar u leeyahay keligii degan yahay inay garanaysa xamar waa la wada deganaa ummadoo dhan baa deganay gobol kale oo caasimadiisa hawiye gaar u degan yahay garanaysa hawiye Soomaaliya oo dhan buu degaa hawiye Soomaaliya oo dhan buu degaa waxa halka ku dhigay ee aad la cabaadaysid maanta la baroorinaysid oo harti qooriisa u kala salaaxaysid hawiye ku kalifay hawiye kaan nasabsan ka gubsan waa dad Soomaaliyeed diin leh dhaqan leh akhlaaq leh iimaan leh gabdhihiisa maanta aan yahuudi suuqa ku qaawinay ii sheeganay gabar hawiye ah oo inta Netanyahu u tago sida ula dhaqmayo maxastaadii iyo maradaadii iyo sharaftaadii iyo karaamadaadii baad nin asaagaaya waxa weeye u dhigtay gabdhaha iyo suuqa dhexdiisa maryaha laga bixinaya hada hawiye wax ka sheegi kara hawiye wax ka sheegi karta waxaan arkay odaygii doqonka ahaa Faisal Faaro wuxuu leeyahay intaan daarood iska ilaalinayna daarood intaas iska ilaalinayna hawiyihi dameeraha dhaqan jiray lagu aqliyeystay hawiye waa sax dameeru dhaqdaa digirtana waa cunaa laakiin adigu buuriyada gaalada dhaqdaa سأكون ده فيسافروا هوية تمارو تقطع تمارو هو حول انتفاع له وعلى رتها بيالوقاتها هدا كجورة والقراء سام والنفل أنفع له لكن بوريا النتياهو يقبله اللقاويني إيجي من بارا له بارو دون كناعي أهوم لسه قبلها يسوق هرجيسة كقاويني مركزها هوية حكي شيء هوية حكي شيء وعايز على هوية تمارو تقطع adu buuriyada gaalada dhaqdaa si jawaamo guuraan kala suulka ka galo waligaaba baaran leefahay oo buuriyada leef jirtay oo jaqi jirtay buuriyada gaalada gasaan hawiye wax ka sheegaysa hawiye oo dadka Soomaalida halka jooga calan baa naga dhaxaya dhaqan baa naga dhaxaya diin baa naga dhaxaya dad aan wada dhalanay way laakiin buuriyo dhuuqow waxa sida loo galeeyay suuq dhexdiisa lagu qaawinayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaanu diidanahay oo aanu ka dagaalamayno aanan marnaba aqbalayna tan hortiina taala goorma marka waalantii goorma samiir qabtaan beegi ma marka anaga leefleefaysan Puntland walaalahayo saan noo leefleefaysan oo dariinaasa weyne Saciid Hulumbe uu beenta idin sheegayo marse marka aad waalantiin adleedii yahuuday waa idin salaanay
ها وايد السلام ضد إسلام فلسطينيين تضباطن كن oo qof baa dhowr saacadood ugu dilay oo caruur iyo maata dad islaam hortiina saa loogu suqaarinaya lagu baabi'inay markaasaaleedii yuhuud baan ku salaanay gabdhahaagina aad hor wada oo nimankiini baa xitaa kuwii abaarsa joogay baa futada saa ula hor ordaya Netanyahu bal markan is dhageysta Israa'iil salaan gudo katimi Soomaaliland sidaan isu fahanayo xiriirka samaysmaybay wixii kalagu ha salaan sare Israa'iil Soomaaliland kaaga timi sideen isu baranay oo isu leefleefnay goorma marka waalantahay goorma samiir qabtaa goorma ku banaantahay hawiyana dameeriisa ka sheekaysid eegi ninka sida u barooranaya baa tahay buuri gaala jacayl iyo alla koodnimo adduunyada oo dhan marka miisaan saa loo saaro cabaad weyn baa lambar 1 sheekh culimadiini caamadiini iyo aqoonyahankii iyo suugaanyahankii hal oday Ali Kaari oday la yiraahdo oo wadaad ah oo yiri ruuxan waa diin ardiintani waa la ka saaraya ruuxan Ibrahim kood waa alla koodnimo xabsi buu ku jiraa isma qabataan هذا هو يحكي شيء كره فيصل فارق هو يضد حلال أو صومالي لماذا يدقن في الدين تكتو سوي هذا يوح ما سقانا صومالي ولا ما صودي حاجة دكان متشكلية أدو حاجة دكتها إلى هو ما نص متر دكان نص متر أخوه ما أنت دقن كودي الدين تودي ما يستا لكن أدو دقن في صومالي ده وقتك إلى هنا واسكودرت قال ذي نواه كوديد إن عقال بالله هي أدونك دبدو نوسو شيء أدونك يقولن بعد الفك وسو شيء وعيد أفكار كعب شوي إنهم قمت لا هذا المقشيد وأنا كمحستسي قبل صورتيسا نبوريا لو خبارني إيه ما أنت دينتي إسلامك وقب حي دينتي سي دقنك سو قب حي إيجي نين سقوا هوم ليس أو حبها يسون حبها قصة أو حبها يسونو نتنياهو يدبشروا أدونك لنا عنك وهوم ليس قف إسلام هذا راعي لها إمارات كانت راعي لها محي قدم لها والخير يبارك هيدري تشيني الصومالي من لماذا يقبل لماذا دلكن يدتكن والله ما تهفتان عيد كستو أو صور تنا جفور كني جبرين برنامج كستوك سوق على سيشر كده برنامج كلايك تكوبوب channel كسبسكرايب كسار برتب فيسبوك بودرجة عاشق أوفيشال فلو ده يلايك تا لو جوبام كل ورسلنا ودينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته